ورحمة الله تعالى وبركاته ومركري ولكن محمد ديفو waxaa la jooga macnaha barnaamijka caawartii waa saaxiibkay Najiib Siiska iyo Maxamed Sahal Salmaanka marka caawa insha Allah barnaamijkan waxaanu macnaha isku weydiin doonaa su'aalo dhaqanka Soomaaliyeed iyo su'aalo kale baragan oo yeesho weydiin doonaa midkiiba 3 su'aalood barcaaga ugu talagalay inaan weydiiyo oo su'aalo macnaha mix la isku diray ah oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo su'aalo kale oo caadi ah marka soo dhawaada channelkeena ku soo dhawaada maxaa leedin asxaabtana maxaa leedin بالعاوة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب محمد ديف من ملك استعدوا كشفتان وأنا سلام ولكن نجيب شيء سكولي الله عبد المركسن عاوة وده من سؤال هذا مكان إنك سؤال هذا كانوا سؤال عن بقول بقول أني كلو مرة سؤال يجاوب هو أكتر تعليم. سؤال كسرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما واحد يوم صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنزل محمد ديفو عاوة وده سؤاله يوم سؤال لو يدينا يوم. السؤال سؤال واحد مركز إن شاء الله سؤالها ينوب بلا مدونا سؤاله معنا نكي وصدح سؤالات بمودين دونا إذا كانوا حرتات أنا ويدي كرتان لكن سؤالها أنا مرتين كوقع معنا جنرال كيلو مرتين قاضي سؤال شغور سواها ويدينيا نجيب بودينيا نجيب واحد شكتا حيوان كان أودين إنه عرف اسمناك كانوا حيوان حنود عرف اسمناك كانوا يعني صوص هربا عن صوص صار كريم ولا لو مثلا حيوان بقلا متحن بقلا كاسوي ninkan waxa weydiiyay su'aalaheed waxa jirta xayawaan kan carabki soo saari karin wuxuu ku joogay wadada gaalaha marka su'aasha wad khaladay maxamed sahal ma ka faa'iideysanaysaa su'aasha hadaan isku dayo ani qaasatan niyadeyda waxay la tahay dhamista ninkan uu soo dhaweeyay wuxuu yiri waa dhibisada baasha gidaada raacda qortada ay soo u taqaana laakiin maaha maxaa sahal ma ku khalaas أنا منها سؤال أو جواب يا أصحاب تقول شيء دونا ويحاسك ما هو إنه عرف كيسا وبناك الصوت أو مناك الصار ولا يحس كده محمد سال سؤال بقول دينية ده قصير ده محمد عربي ملني أنا ولا عربي ولا لك هو صار محمد سال بقول دينية وحاشك تاع جيلو مارتي geela laba jirka iyo saddex sano iyo hal jirka iyo marka la isku daro macnaha ama or ahaado ama qaalin ahaado geela adigu macnaha hadii aan wali oo xadleyn oo macnaha adigu laba jirka geela hal sano jirka iyo laba sano jirka marka la isku daro magac baa loo yaqaana geela markuu macnaha nooc yar ama loo sano jiro ama hal sano jiro magac baa loo yaqaana magac loo yaqaano شيء كرتا اسمه أوتقانو نريك نريك نوبعناها وحال كميدا قالوا المهودو شيء جوا يعني كيف ما كيف يسلسل أنا سود اليوم يعني واحد من حين قيلا حين نيكر وحي حين قيلا ماشي ما تلو حين قيلا روح كرب هاي لا كرب فايديو قيلا يرير أو حالك سنة يلوى سنة شراء oo ama niriga ahaado ama ha ahaado ratiir ahaade waxa la yiraahdaa aaran baa la yiraahdaa marka macnaha wasaasaan filayaa haddaan waqtiga khaldina ilaa waa khaldami karay oo soo sixi karta markaan adiga project Najiibka su'aal kale aan ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeye waxa sheegtay xayawaanka aan kor fiiri karin cirka aan fiiri karin cirka baan ay karin وليه صدق موسى حيوان قاسي اركب انا هيك شيء حيوان اركب فيري كريم اركب فيري كريم لا حيوان اركب فيري كريم سوديو يبارك مروديga dhax يا مروديga ika wuxuu xayawaanka cirka aan fiiri karin مروديga ma sixin mana sheekin marka maxaa sal way fayirsa سؤال هذا صدق وحومنا لي حيوان cirka fiiri inuu yahay jilaa waxaa sahal su'aasha ka faa'iideysi macnaha oo ka faa'iideysan waayay waxa sheegtay xayawaanka aan cirka fiiri karin maxaa sahal oo ka faa'iideysi lahaa qor sheegwa nijiban su'aasha weydiiyay uu sheegi kari waayay maxamed sahal wuxuu yiri waa jinaca saaxiibkaan wuxuu yiri waa maroodiga
marka haddaan su-aashaan u saxe haddaan ka jawaabo oo aan isku dayo waxaa odhan karaa waa qaasiirka ama doofaarku kor ma fiiri karo haddaan khaldana dadkeeda daawanaya oo publicationka bulshada baa micnaha hoos committee hoos kusoo qori karaa idinkaa micnaha su-aasha inii daayay laba iyo laba kala qabtaan hal su-aal baa micnaha haddi maxaa sabala joogtaa hal su-aal baa micnaha su-aasha labaad baa adiga ku weydiinaya waxaa sheegtaa su-aashan labaad haddii waxaa sheegtaa innaga xoola dhaqanta oo leenahay ariga dhammaantiis kusoo qaadba ido iyo riiba idaha iyo riyaha waxay dhalaan ama waniyar ha dhasho ama orgeyar ha dhasho markii micnaha meel laiskugu soo ururiyo meel laiskugu kalo jacal laiskaga dhigo afkooda micnaha jabc ahaan maxaa lagu yiraa markii xero yar meel loo sameeyo oo micnaha markii xero yar loo sameeyo magaca kulmiye maxaa la yihahda maxaa saro laakiin magaca kor u qaadaa waxaan u malaynayaa inay tahay ciisaamo maxaa sal wuxuu yidhi su-aashaa weydiiyey waxaa yidhi dhasha riyaha iyo idaha markii meel iskugu keeno magaca jabc ahaan loo yaqaano saaxiibkaha wuxuu yidhi waxaa la yihahdaa ciisaamo garanwa ma ka faaidaysanaysa adiguna najiibka su-aashaas su-aasha keliya kala kulmaya su-aashaas waa waxro ninkana wuxuu yidhi waa waxaro isna ka faa'iidaysan waa marka labadooda way seegtay ninkii su-aasha lahaa ninka ka faaidaysan labadooda sheegi waaye marka haddii anigu aan isku dayo aan ii sheego iyagana u sheego waxaa oran kara waa maqal markii meel iskugu keeno idaha iyo riyuhu ilaha dhalan ama xoor ahaade ama wana ahaade waxaa la yihahdaa waa maqal baa la yidhaahdaa hal su-aal ba adiga ku hadhay ninkan hal su-aal baa u hadhay marka tii hore hal su-aal baa weydiin kartaa hal su-aal baan ku weydiinaya hal su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa sheegtaa awrka reerka oorka micnaha reer baadiyu oor bay rartaan ee ku guuraan awrka ilmaha la saaro oo markuu reer guura ilmaha oo dhashay iyo maqashii waxaa la saaro waxaa lagu yidhaahdo af soomaali baa la iska rabaa Soomaali waxa weeye mataqaanaa yani ratiga qooqa laga biyo qooqa waayo adigu ratiga waxa weeye marka reer guuraayo ilmaha la saaro oo maqasha laftiga la saaro oo ilmaha lagu aaminaba ratiga baa Soomaali ratiga waxta laga rabaa ratiga qooqa laga biyo muxuu magaysaa anu garan qofka ratiga waxta laga rabaa barqab ninkaasi su-aashaan weydiiyey waxaa yidhi waxaad sheegtaan awrka reerka loo raro ilmaha la saaro maqashaan la saarto wuxuu ama qofka marka xulsan la saaro wuxuu ku jawaabay waa barqab barqabka waa kaga qoqonaa oo geela loo hayay su-aashaasi micnaha garan waa sheegina kari waa maxaa sahal baa weydiinay maxaa sahalo talow micnaha haltay wali baadiga micnaha maad aragto badisay bal su-aashaas ku day awrka reerka loo ilmaha laga guuraya ilmaha loo saaro maqasha loo saaro qofkii xunsanaya la saaro markuu reer guuraayo oo ilmaha maxaa lagu aamino la saaro oo la rarto oo khaaska ah waqti dhan waa la raraa orka waxaa jira khaas oo ilmaha la saaro oo maqasha la saaro bal noo sheeg magaciisa noo sheeg ya wuxuu yidhi orha waxaysa waxaa la yidhaha koran dee war badan baa la kormaayey laakiin labaduba micnaha su-aashaa weydiiyey ka jawaabi waaye su-aasha dadweynaha baynu u bogdhigaynaa horta anaa ka jawaabaya su-aasha oorka waxaa la yidhahdaa gurguurshe waxaan weydiin doonaa haddii anigu khalday waxaan weydiin doonaa mid ka mid ah goobjoogayaasha barnaamijka oo halkayga la socda cabdicasiis adaa micnaha bal naga badiya xaggaasi maxaa la yihahdaa oorka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتي وأنا سلام يا سؤال شيء هدان اسكو دايو waxa la yiraahdaa awrka gurgur ukaadi anigu talow oorka gurgurshan u aqaana marka haddii minaha ayaan su-aasha aan jawaabta aan khalday waa soo sixi kartaa ama laftigii baadiya waa hore ay ugu dambeysay laakiin su-aasha iga soo saxa oo gumidka minaha kusoo reeba hal su-aal baa hadhay su-aashaan waxa weydiinayna waa maxamed sahal saddex bay lahaayeen maxaa hal su-aal futbal weydiinaya
su-aasha la weydiinaya waxa weeye waxaa sheegtaa hal su-aal baan ku weydiinayaa waxaa sheegtaa xeebta la yidhaahdo adigu waa meel kamid dalkeena hooyo waa xeebeena Soomaaliya xeebtan la yidhaahdo magaalada la yidhaahdo magaceeda la yidhaahdo Bandarbeela gobolka ee Soomaaliya kaga taalo sheeg magaalada waa magaalo xeebeed Bandarbeela la yidhaahdaa gobolka ee Soomaaliya kaga taalo sheeg Bandarbeela sheeg Bandarbeela gobolka ka sitay degmada Bandarbeela wayna waa ku sijilcinaya بس كار maxaa sakaara ayana sakaariya Bandarbeela waa magaalo xeebeed laakiin kastoo aysan si aan caan weyn u ahayn laakiin hees bay ku jirtaa dad baa ku nool heese hore loo qaaday dad baa ku nool Soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa degmada Bandarbeela gobolka ka tirsan baa laga rabaa maga faa'iideysanaysaa nasiibkiisa Bandarbeela hadaan isku dayo gobolka ku taal waxa gobolka Karkaar anagu waagii dowladda sidaad baradalka kobcinaha gobolada ka dhacday baanu ka rabnaa gobolkay ka taalo Soomaaliya bari ninkaasi su-aashaasi uu ka jawaabay degmada Bandarbeela waxay ku taalaa gobolka bari barnaamijkii halkaasuu naga eegyahay dadkaa su-aalaha weydiinaya asxaabtii midka saddex su-aalood baan weydiiyey way garan waayeen marka wixii la garan waayey xagga hoose ka soo jawaabo hal su-aal keliya baa la gartay oo ka faa'iidayseed jiibkaa gartay waxay ahayd degmada Bandarbeela gobolkay ku taallaa gobolka bari bay ku taallaa buu yidhi su-aashaas oo ka faa'iidayseed buu ninkaas ka jawaabay aad baa u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijka haddaa ka hesheen subscribe marnaba hayla dhaafina war subscribe ugu caawiya subscribe wax ku noqon karaa nacala shaydaan ku yeelay subscribe iga daba geeye